عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامنا أصحابتي Science 24 haddii aad channelkayga ka mid tahay xubin ka midana waa bartadan ku salaamanaa haddii aad nagu cusub tahay kusoo dhawow maanta waxaan ka hadlaynaa cashar cusub waxaan ka hadlaynaa waxa loo yaqaano unit conversion si la isku bedelo cabirada marka isku bedelada cabirada waa cashar aad iyo aad u muhiim ah mar walba aad baranaysid sayniskana maadooyinka sayniskana aad iyo aad u soo noqnoqda mar walbana inuu laga rabo inuu ardaygu si fiican u fahmo iskuna bedeli karo cabir walba oo magaranaysa laga doonayo inuu cabirka loo bedeli karo arday fara badan ayaa dhibaato kala kulmata si la isku bedelo cabirada sida awgeed waa basicska aan magaranaysa maadooyinka sayniskana haddii aan qofku isku bedeli karin cabirada dhibaato fara badan kala kulmaya magaranaysa mar walbana caqabad ayay ku noqonaysaa si la isku bedelo cabirada sida awgeed ayaanu ka hadlaynaa maanta unit conversion isku bedelada cabirada isku bedelada cabiradu waa cashar ballaaran oo hal cashar kuma soo koobi karo insha allahu tacaala maanta waxaanu ka hadlaynaa qaybtiisa koowaad insha allahu tacaala qaybaha kalena waxaan qaybo labaad iyo saddexaad inaan ka samayn doonaa insha allah haddii ilaha idmo marka insha allah tacaala maanta waxaan ka hadli doonaa qaybta lengthka dhererka si la isku bedelo marka insha allahu tacaala qaybtaas ayaan maanta focuska saaranaa markaan ka hadlino length waxaa lagu cabiraa mitir marka insha allahu tacaala cabirka ugu weyn waxaan ka bilaabanaa insha allahu tacaala si la isugu bedelo marka qaybaha lengthka si la isugu bedelo ayaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala marka cabirka weyn wuxuu noqonayaa kilometer marka kilometer waxaanu insha allah rabnaa inaan isku bedelo marka hadhow meter decimeter centimeter iyo millimeter marka insha allahu tacaala shanta cabir ayaanu rabnaa insha allahu tacaala maanta xooga saar kilometer iyo meter decimeter iyo centimeter iyo millimeter shanta cabir sidaas ugu bedeli karto mar haddaan marna dhinaca midigta ka imaan kartid marna dhinaca bidix ka imaan kartid kaartidaas ku bedeli kartid insha allahu tacaala marka waxaa muhiim ah cabiradan way kala wen yihiin sida caadinka marka laga hadlo unit systemka waxaa lagu cabiraa horta dhererka length waxaa lagu cabiraa meter cabiradan kalena kanun baa laga dadaanariyo kilometer waa lambar ka weyn inta kalena saddexdaa kalena way ka yar yihiin marka intaas oo cabir kilo siyo kala bedeli kartaa marka ka doontido markaas ku bedeli kartaa marka insha Allah tacaala cabiradu kala weyn marka kana ugu weyn kilometerka meterka ku xiga decimeterka ku sii xiga centimeterka ku xiga millimeterka ku xiga marka insha Allah tacaala waxaan ka bilaawnaa kilometerka meterka xidhiidh ka dhaxeeya muxuu yahay marka kilo waxay u taagan tahay kun bay u taagan tahay 10 to the power of 3 bay u taagan tahay marka kilo marka laga hadlayo waxaa jira waxa la yiraahdo scientific notation marka insha Allah tacaala cashar kan ku hadli doonaa marka kilo waxay u taagan tahay kun marka meterka dikay kun u taagan tahay ay soo hadhaya kee saddex eber buu dhigtaa kun kiyo saddex eber u dhigan yahay marka kun baa u dhaxeeya marka because of kun bay u taagan tahay kilo marka xorana labadan xidhiidh ka dhaxeeya waa kun marka hore waxaan rabnaa insha Allah tacaala inaan ogaano horta xidhiidh ka dhaxeeya marka qofka hadduu ogyahay xidhiidh ka dhaxeeya inta kilometer iyo inta meter inta xidhiidh ka dhaxeeya ama hadhow inta hadda uu xidhiidh ka dhaxeeya kadib waxay isticmaalaysaa maal ama qayb waa isku dhufanaysaa waa soo qaybinaysaa marka multiplication baa isticmaalaysaa ama division waa soo qaybinaysaa marka hore xidhiidhka u marnaa insha Allah aan xoogsan marka meter haddii maadaama kilometer iyo meter ay ku ka dhaxayso meter iyo decimeterna maxaa ka dhaxaysa 10 baa ka dhaxaysa waxaana labadana 10 baa ka dhaxaysa decimeter iyo centimeterna 10 baa ka dhaxaysa marka centimeter iyo millimeterna 10 baa ka dhaxaysa marka saddexdan dambe waxa ka dhaxaysa 10 baa ka dhaxaysa kan ugu horeeyna keeda maadaama kun taagta kun baa ka dhaxaysa marka saddexda horta intaas waa inta ka dhaxaysa inaas horta waa furaha kuwa haddii qofku inta uu yahay inta ka dhaxaysa kan kun baa ka dhaxaysa inta kuwan kalena waxa ka dhaxaysa 10 labadan 10 baa ka dhaxaysa labadan 10 baa ka dhaxaysa labadan 10 baa ka dhaxaysa marka qofku inta haddii uu yahay waa inta maskaxda ku haya inta ka dhaxaysa kadib waa wixii kale waa wax iska fudud markiiba qofku uu samayn karaa insha Allah tacaala marka furaha koowaad marka waxa weeye maadaama ay saa u kala weyn yihiin haddii aad haysatay cabirka weyn oo aad doonaysid inaad u bedeshid cabirka yar waxaad isticmaalaysaa ku dhufo marka waa keesi koowaad haddii aad cabirka weyn haysatid oo aad cabirka raadinaysid ku dhufo isticmaasha marka macnaheedu waxa weeye haddaan hadda cabirka weyn haysto aan mitir doonayo waa ku dhufanaya marka waxaan isticmaalayaa waxa loo yaqaano calaamad ku dhufo ma isticmaalaya marka kuna dhahda calaamad ku dhufo isticmaalaya ku dhufo marka hadda tan waxa way tan hadda ka tagayo aan meter aad ku dhufo calaamad ku dhufo isticmaalaya tan meter ka tagayo waxa isticmaalaya meter dan decimeter ka tagayo decimeter aad ku dhufo isticmaalaya la toban kama ku dhufanaya wax ka ku dhufan maayo inta ka dhaxaysa ku dhufanaya hadda ku dhufo ka dhaca isticmaalaya waxa ujeeda inta ka dhaxaysa ku dhufanaysa marka hadda centimeter asto millimeter u bedelayna soo ma ku dhufanaya haddii aan haddaba
aan cabirka yar haysto marka maxaa idhi haddaan cabirka weyn haysto waa furaha koowaad marka macnaheedu qofku inuu intaa fahmo haddaa cabirka weyn haystid oo cabirka aad si ku dhufaa isticmaalaysa marka haddee kuwan oo dhan cabirada waaweyn baa micnihi baan haystaa ka yar baan raadinaya ku dhufanaya haddii aan cabirka yar haysto oo aan ka weyn raadinayna waan u qaybinaya marka haddaan aan warno xaggan haddaan ka imaanayo xaggan aadayana micnihi tobanka xaggaas iyaduna baan u qaybinaya marka waxaan isticmaalaya calaamad u qaybi haddaan kuwan ka tagayo dhan tobankaa la isticmaalaya laakiin hadda waxaan noqonaysaa u qaybi calaamad unba isbedelsa waxaan noqonaysaa u qaybi hore ku dhufan isticmaalaya haddana waxaan isticmaalaya qaybi laakiin waxaan u qaybinaya waa inta xidhka ka dhexaysa bis haddaan mitir haysto kilomitir raadinayo kunkaasaan u qaybinaya haddaan decimeter haysto mitir raadinayo tobankaasaan u qaybinaya haddaan centimeter calaamadu cabiradu way kala weyn yihiin haddaan centimeter haddaan haysto aan decimeter aadaya tobankaa u qaybinaya haddaan millimeter haysto aan aadayo centimeterna tobankaa u qaybinaya marka muhiimaddu waa intaas magaranaysa haddaa cabirka weyn haystid oo ka yar raadinaysid waa ku dhufanaysaa haddaa ka yar haystid oo cabirka weyn raadinaysidna waa u qaybinaysaa taasiste waa micnihi waa bunti koowaad qofku magaranaysa rabo inuu ogaado marka haddaan example bixino tusaale ahaan oo kale aan example haddaan bixino oo kale waxaan haysataa haddeer oo kale 2 kilomitir haddaa cabirka weyn baan ka bilaabanaa ilaa ka yar baan rabnaa tagno tusaale ahaan oo kale waxaan haystaa 2 kilomitir waxaa la yidhi waxaa u beddeshaa millimeterka u bedel millimeterkaas kana tago marka waxaan odhanaa haddaan mitir iga bedel marka mitir waxaan odhanayaa maadaama mitir haysto maadaama kilomitir haysto mitir u socdo micnihi cabirkii weynaa waan haystaa cabirkii raadinaya kun baan ku dhufanaya marka waxaan noqonaysaa 3 ceer baan raacaya maadaama kunku 3 ceer yahay waxaan raacaya labadii waxaan raacaysaa 3 ceer marka mitir baan hadda joogaa marka mitir markaan kasii bedelanayo waan aadayo decimeter toban baa ka dhexsan karto hadda maadaama cabirka weynaa haysto mitir haysto aan decimeter kii haystana waa ku dhufanaya toban baan ku dhufanaya marka hal eber baa raacaya marka waxaan noqonaysaa 20,000 oo decimeter marka maadaama hadda decimeter haysto aan centimeter aadayana toban baa ka dhexaysa marka maadaama cabirka weynaa haysto toban baan ku dhufanaya waxaan noqonaysaa waa 100,000 malayn sorry oo markaa centimeter marka haddaan centimeter haysto aan millimeter aadaya toban baa micnihi cabirka weynaa baan haystaa ka yaraa baan raadinaya toban baan kusoo dhufanaya marka waxaan noqonaysaa 2 milyan baa noqonaysaa 3 eber baa raacaya millimeter marka saasaan isugu bedelaya marka haddaan kii weynaa haysto waan ka yar raadinayo oo ku dhufanaya micnihi kaasaan isticmaalaya mar walba calaamadahana micnihi cabirkaan haysta aad iyo aad muhiim marka haddeer saasaan ku bedelaya marka haddeer kilomitir haddii la iga doonayo inaan u bedelo millimeter marka waa 2 milyan weeye saasaan u bedelaya haddaan dib baan kasoo bilaabi karaa waxaan odhan karaa tusaale ahaan oo kale b oo kale haddii hadda la odhan lahaa waxaad u beddeshaa tusaale ahaan oo kale cabir lasiiyo tusaalaha labaad oo kale haddii la dhaho waxaad u beddeshaa 0.0000005 oo kale haddii la odhan lahaa kilomitir bedel haddii lagu odhan lahaa oo waxaad u beddeshaa millimeter oo kale tusaale ahaan oo kale loo bedel waxaan odhan lahaa intii baan isticmaalayaa kun baan ku dhufanaya marka kunka 3 eber baa baxaya marka 1 2 3 marka 2 eber baa hadhaya marka waxaan noqonaysaa 0.005 mitir mitirkan aan kasii bedelaya hadda waxaa kusoo dhacaya toban baa ku dhacaya marka toban xaggaasoo imaanaya hal eber baa guuraya waxaan noqonaysaa 0.05 decimeter haddaan toban baa kusoo dhufana markaa maadaama aan centimeter kusoo bedelayo tobanka ku dhufanaya 0.5 baa soo hadhaya 0.5 centimeter haddaan centimeter kasii guurayno mitir goobna waxay soo hadhaysaa 5 marka point waa baxaya marka haddaan toban ku dhufto point kaaga baxaya waxaan noqonaysaa 5 millimeter markaas haddaan asarka ku helo marka intaan umar isticmaalaya wax kale ma isticmaalaya kaliya waa ku dhufanaya haddaan cabirka weyn haysto waa ku dhufanaya oo micnihi ka yar raadinayo haddii aan ka yar haystana waan u qaybinaya oo micnihi ka weyn raadinaya waan u qaybinaya marka tusaale ahaan kale si haddaan cabirka la siin lahaa oo leedaha maanta cabirka iyo bedel oo hadda ka soo qad waxaa haysaa 3,000 oo kale 3,000 oo haystaa millimeter hal waxa uu daa kilomitir u bedel marka warsa waxaan odhanayaa mitir waxay u bedeshaa centimeter u bedel marka toban baan u qaybinaya marka toban eberkaas aga baxay eberka koowaad aga baxay 300 baa soo haray 300 centimeter 300 centimeter decimeter bedel toban u qeys qayb toban baa ka dhaxeeya taana ku soo sheegnay toban u qaybinaya isna marka 30 baa soo haraysa waxaan haysaa 30 decimeter maadaama hadda 30 haysto aan doonayo mitir toban baa ka dhaxaysa toban u qaybinaya because cabirkii raabana haysta kii weynaa baa raadinaya marka hadda ka weyn raadinayna oo qaybinaya waxay soo haraysa 3 mitir ka mitir ana kilomitir bedel waxa ka dhaxaysa kun ka kii yaraan haysta kilomitir iyo mitirna kilo ma weyn ka kilomitir ka weyn waxaan qaybinayaa kun
هذا كل قيمة صدق لو قيمة يكون يعني لو يبقى سرعة يعني كان وصل 0.003 كيلومتر يعني هذا لو حاسب كيلومتر كانوا بدل كان صدق شو بدل الكلام ما كان صدق شو بدل الكلام عبر هذا عبر كان دوران بدل الكلام هذا ما كان دور ديسيمتر بدل السيو أنا سنتيمتر بدل يو هذا ديسيمتر كان صح بدل الكلام متر بدل الكلام كيلومتر بس بدل الكلام ديسيمتر كان عبر كده دوران لسين كلام مش هذا ناقص عن كلام مرة حاجة ناقص عن كلام مرة هذا حاجة ناقص عن كلام كان صدق شو بدل الكلام هذا سؤال خبي حمد سؤال أنا وكله حلو سين كلام سؤال كله حلو سين كلام متر وكله سين كلام من عدد ناقص عن كلام سؤال أنا وكله أنا كله حلو يقول مركها هذا وكله حاجة أنا وكله حلو سي حلو بس كنتر متر بالسي حلو كيلومتر لو بدل الكلام أنا كيلومتر يوم حكى الحين هذا كيلومتر من هذا الكلام يعني كم باكل الحين كم هذا كيلو هذا نيو إنه حاسس أنا وهو قريبنا يعني إحنا واسا كم مرة قريبنا إحنا واسا 0.0 كحاجة هذا يعني كم قريب يعني بوينت كل حاجة كبحياة كلام حاجة متريا إحنا واسا 5 يعني 0.05 يعني هذا 0 بلس إحنا واسا كو لا واسا ده بس كاسة تيسا وكان تسوي كيلومتر نوانسا هذا المكان استدي عناصر عن كرا وكله حنوس بدل كرا ديسيمتر كان ديسيمتر ده كيونا عبر كمتر بناسا كيونا بناسا كيرا مركادينيا هذا مكان متر كتجيان يعني كيونا مركادينيا وهو قيدنيا هذا هذا المتر مثلا ديسيمتر مركادينيا ديسيمتر أو يعني كيرا وياه عبر كيرا يعني هو كله فرعي حنس ماليا كله فشل يعني بقول حكى حيسا متر كي ديسيمتر حكى حيسا ثم ما حيسا فتوما كله فرعي حنس شن بقول ديسيمتر ديسيمتر بنا هذا سنتيمتر ياريو من ديسيمتر كوين كان كيرا هذا نقول فرنيا waxaan ku tomax u fanaya waxaan kun noqonaysa 5,000 oo sentimitir da sentimitir ka tago millimeter raadinayna inta tomax u fanaya because sentimitir ka weyn noqonaysa 50,000 oo millimeter ka cabirkii doono meeshaan doona u socon karaa bidix midig meeshaan doona u socon karaa dan kaliya waxa muhiim qofku haddaad cabirka weyn haystid oo aad ka raadinaysid waa ku dhufanaysaa haddii aad ka yar cabirka yar haysana cabirka weyn raadinaysana oo qaybsan cabirka doonto haddaad cabirka doonto marka waxay ku xidhantahay marka كوين يا كير كار هذه نسيب يعني هذا عبر هذا سنتيمتر بدنا هستو وان سنتيمتر هذا يعني سنتيمتر كاير سنتيمتر كوين أو يعني حسب عليه أو قيد هذا سنتيمتر هذا سنتيمتر هستو سنتيمتر يعني مليمتر هذا هنا يعني سنتيمتر كوين مليمتر كاير هنا أقول فنايا هذا أنت كلي اللي مقالنا سا استعمال سا أما هذا أنت مقالنا سا براكتيس ميسيد إن شاء الله تعالى مقالنا سا كوف ذا سمركي إن شاء الله تعالى وتفهم بسا marka insha Allah ta'ala halkaas ku soo gudbina 10kayga insha Allah ta'ala 10rada insha Allah 10rada dhammaan ka hadli doonaa qaybaha kale ay cabirada marka insha Allah ta'ala halkaas ku soo gudbina assalamu alaykum wa rahmatullahi YouTube والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.